أنا هذا بيد ما يقوم ثاني كأكل تشوفي أنا تكلفه هي خرج كل بحنين وحكم إذا خصائص تايلة ده قف منه هل قف وحكة بدن إسلا دقيقة ده جزء لقيل كريم وحكم إذا هذا بالمزايات كده إن ورشدها أو كلا يو هذا بالمهيو شركة خصوص صار أي طلب خصوص صار كلا منتجاتكم ومركا كيدين في فراها بنليد يو بدأ عدل السوسار أن من باللوهين إن هذا بعيد ما هي اللوه اللي كريو طلبوا دياره ومركا قف صوت الله ديارني الله يوكل عن مال وحكم إذا مزاياتك يو وسائل الإلكترونية أما قناعسية الإلكترونية وكانت تجارة خارجية هي عالم كل سفرانتو وهذا بعيد ما يرجع إنه قطع يسوي درسي قناعسية والضمادة كلا دوان أما قارنها كلا دوان أو البرسية بدوه شيء حدودها قاقة يبدها وين في قدبي وحكم إذا معلومات كي يحققها كلا هليان ذاتك الشيء الدنقلي يصير دقيقة أما فضل أما معلومات متوفرة يحقق لما يشوفنا أما كاملة أي كيليا وصائكا بقالي أما قبع جود وبقالها أي مركز سميت مزايا اللي كل بدبنه وحالتي وهذا السوق عالمية أما مرتبطه جناح سنوي أسواق كجناح سنة عادي أهان dadku dhaxtooda isugu yimaadaan suuqan laga ganacsado elektroniga ah isaga maxaa lagu qeexi karaa culimadu leeyihiin oo wasiila tajmac bayna al-baayi'in wal-mushtariin biqarad intiqal as-sila' wal-khadamat min daraf ila akhar abra al-wasa'il al-elektroniya wa wasiila kulminaysa dadkii wax iibinayay iyo ku iibsanayay iyadoo ujeedku yahay badeecooyinka iyo khadamaadka يسيرفيسكو إن يأكل جدبان لبضع عن أكل فوقيه ومرة وسائل كإلكترونية. صاص وقت السوق أنا كنت حين جودهان وحين ربط المعنى الجدال قال عسير إليه أركان الشروط أركان فوحى كوكاها العاقدان رجل المعنى الله بدعين شيني إلا هلو وحكمها المعبود عليه وحين يبصري العكس اللي قبل حدية أما أنت اللي اسمه ذي لو بدعه شيء عقد كل عين له هلو وحكلوا كم إذا هاي إلا هلو هذا بين الصيغة يقابل شيسكو وتشانجو ومكا كموتشي لنع وليبا إنه ذلك هي يقابل شيسكين وقالوا أركان تيجدد النوع هاي واحد بدل نسكب بدل waxay iska bedelay laba qodobka koowaad majliskii aqdiga oo shuruudaha ay u tilmaanay siiqada iyo hadaba qaabkiisu dhacay waxa kamid aha ittixaad majliski inuu midaysan yahay oo dadkaas ay goob wada joogaan ama majlis mucayyana ay heshiis isku wadaarsadaan waxay culimadu ka odhanayaan hadii halka masaajid gudihiisa ama qol gudihii lagu wada hadlo oo gaarigaas waan ka iibiyay ama gudiga waan ka iibiyay oo laga dhaqaaqo banaanka loo baxo oo goobtii qof aan ka faarqo goob kale aado heshiiska goobta dadma ka yiraahdo waana qalima ansixin waayo goobta heshiisku oo ka dhici lahaa kala duwanaatay ama iijaabkii qabuulkii baa laba goobood kala duwan ka dhacay معاملة معاصر مرس وسائل الإلكترونية أنت بدل قاب كذا وحوي لغادي قفز جوبة متشوية بل وحلاقي بس قارن بين أنا تشوي سلام عليكم علماء الإسلام كون وحيابها أي كذا ذالين جود بدل كوب بحية وحاء إن تصويريان أما أي قابيان وحي صورة قال أدعي كرام أما كهاد شوقان حلقة أما حتى فرضيات وحيابها عن دعنها هذا علماء المعاصرين تاهي مركي مسائل كمعاصر كاهي عصب كفتوانيان وحي كباران إلا هلا يأدلو
kitaabka iyo sunnaha ijmaac culimmada oo la hoos geli kara masalada waxay ka baaraan qawaacidda guud ee shareecada masaladaas inay ku yeelan karto mid ahaan farac u noqon karto oo la hoos geliyo waxay kale oo baaraan mas'aladan masale u eg oo culimmadii hore ka fatwootay ama xitaa mid lagu qiyaasi karo oo isku duf ay yihiin ma la heli culimada mucaasiriintaahi markay kutubta fiqiga aada u baareen waxay heleen iyada oo laga hadlayo laba qof oo kala maqan oo fariin isu diray oo qof afka fariin uga dhiibay rasuul ama qof wax la faray oo qaadaya heshiiskii ama wadad maktuuba loo diray ama haddee bayd mahayo waxay sawireen meel fog iyadoo la ysaga dhawaaqay imaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa majmuuca ah ee macruufka wuxuu ku leeyahay walow tanaadaya wa kaana mutabaacidayni watabaayaca saxa alcaqdu bilaa khilaaf wuxuu leeyahay haddii ay isu dhawaaqaan iyagoo oo kala fog dabeedna halkaa ay ka heshiiyaan isma arkay oo kala fogi dhawr unba isu baxay dabadeedna ay halkaa ka baayactamaan oo heshiiyaan oo iib ku heshiiyaan caqdigu waa ansaxayaa bilaa khilaaf sidaas in la eg ta maktuubka ah ee qoran imaam an-Nawawi raximah llahu tacaala wuxuu ku tilmaamay kitaabka majmuuca laftiisa wuxuuhi qaala asxaabuna wain qulnaa bisixati wain qulnaa yasixu yacni albaycu bilkitaaba fasharduhu an yaqbala almaktuubu ilayhi bimujarad iطilaaci cala alkitaaba huwa alasax majmuucu ku sheegay mujalladka 9 sanada 120aad khilaaf yar baa wuxuu ku jiraa warqada lagu tilmaamay saan filayo haddii warqad laysu qoro oo heshiiska lagu qoro oo la diro oo qofkaa goob kale uu ku gaadho kitaabadaasi ma ku ansaxaya heshiis ku ansixi maayo khilaaf yar baa ku jira jamhuur culamaa waxay qabaan waa ansaxaya xanaabiladu waxay shardiyaan in labada qof ay kala maqan yihiin oo laba qof wada jooga aanay ahayn oo isku goob fadhiya shaaficiyada weji daciifa waxay ku leeyihiin ma ansixi laakiin jamhuur culamaa xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaafici calal sax waxay leeyihiin qoraalka laysu dhiibay ee ka tarjumaya heshiis ganacsi iib kira wuxuu doona ha noqdo haddii qoraal lagu sameeyo oo alla diro qofku markuu gaadho goobtaa uu ku gaadhay uu ku aqbalo u ansaxayo hadduusan goobtaa markuu akriyo waa aqbalay o dhan ama afka ama qoraal ku samaynin oo iska kaco oo dad iska qabsado waxay leeyihin sida asaxa ah heshiiskaasi ma ansixina waxay muujinaysaa qofkaasi inuu ka jeestay ama diiday heshiiskii iyo cardigii ama ijaabkii loo soo bandhigay sidaas in la eg baa markay kaga waramayaan xanafiyadu kaasaanidii badaa'ic sanaa'ic sabxadda ama mujalladka 6 sabxadda 540 haddaba haddaynu usoo noqono wasaa'ilkan ee la adeegsado waxay noqon karayaan kuwo qoraala sida emailka iyo talaka siiya fakas iyo hataa whatsappka la isaga qora iyo wasaa'il qoraalahan loo adeegsado marka xukunkooda ma la mid noqonaya kaa aynu sheegnay culimmadu ay kaga hadleen kutubtooda quruun ku hor oo ah qof markuu heshiiska diro ka kale goobta isku gaaro waa inuu jawaabta ku bixiya hadduu aqbalo heshiiska waa guntamay waxaa kala noqon kartaa hadal laysu gudbiyey oo markaa ah telefoon haddee beydmaya wixii la halmaala oo marka wasaa'ilkan lagu wada xidhiidho noocay doonanba ha noqdaane labada qof hadalkoodu isgaari karayo in heshiiska lagu galo asaana markaa goobooda joogin labadii daraf taasna wanagi lahayn imaam nawi wuxu hadday meel fog isaga dhawaaqaan beyc waa ansaxaya oo ku heshiiyaan sidaa marka qaalada dabadood bay isaga jawaabeen oo nin waliba haddee bayd mahayo ninkii kale waa maqlayay wuxuu yihi waa fahmay jawaabtiina waa heshiisku waa dhammaaday haddii ay dhacdo sidayn hore u tilmaanay in telefoonku go-o ama khadku go-o iyadoo qofkii labaad jawaabtii aanu bixin majliskii waa dhammaaday oo macnaheedu waxaa weeye haddii ka dambe intuu soo hadla yidhaahdo haddaan aqbalay wuxuu u baahan yahay in iijaab labaad la sameeyo qofkii ku celiyo iibku idhaahdo waxaan kaa iibiyey gaarigay intaas kaasiy waxaan kaa iibi gurigay intaasa kaasiiy yani majliska telefoonka iyo aalaadka lagu wada hadlo waa inta khadku xidhiidhsan yahay haddii markaa qof
ويبكي قيبتي ورشة والكائب يدادو أصلا كدن بولي جوابين وخذكي قوء الشيس كاسي مقب سومين هدي أدب له سوعين إيجابك معنى سيهين لبردقي يبكي والكائب يلقاط وصل عرد يوس مقضية دبيس لخطي وكذا أنوار وكا أقبل وعلماء أي كهذا لما كحول بدل ده يوسف كي يسمع لي وقوة الشراء آلات كالسكان مغلوب واحد كان علماء كهذا إن شركتها يهدد بإدماء اليوم الأشخاص صبا أي بندقي كريان شيء يبينيه عرضي سمي كران شركة بارسكة سجواري بقول قاري اللي تدوس رمضان كذا صار في صور جيامبا يقينه وحنا بهذه المدة معين مدة بداية عندي قال سوا وأفرنتا مركا عرضي وحقوق قيدية هي مدة معينة مدة بداية قف كستون تقف كصور قالوا جوابتي قبول كلا جسمين اللي أما قابتي لو قد بداية قبول كأوجد بيا هذا تملك كل جريدة هذا تهدي بعد ما هي قرال لقرية هذا هذا اللي هو الله يدوس سداسة بي مدة جريدة إيجاب كنواء صح قبول كنواء صح شيء كنواء بنتم لكن دي مضر رماته معناه دي وحويه ده عرض إيجاب كنواء رماته شيء كذا في كنواء البندقة عقدقة إيب كبندقة أنا واحد كلام عمرنا البندقة حلي هو قبض ورماته عدي دولس waxay u baahan samar labaad in la soo jeediyo ama la cusboonaysiiyo bandhigii nooca ah ama in iibkaasi uu mutaax yahay furaya qodobka marka majlis al-aqdiga iyo qodob isaga kullamaan oo cadam al-fasl bayna al-jawab wal-qabul oo culimadu siiqada qaabka loo heshiinayo waxay u shardiyaan inaan muddo u dhaxaynin ijaabkii qabul labadaba waxay ku cilaajiyeen علماء قاف أن تلمامن يقول كرديجانية نصوص دي أي كفاية يستنتج تفضيجا إلى سبحانه وتعالى واسعية أو عضين تريح الجدل دين كالدين خالد وولي الوارث إلى قيام الساعة ومصالحه ومده وأدرس أن يتعي ما فرطنا في الكتاب من شيء قال سبحانه وتعالى إليه قضب كاللبات أي كوكا الدوانان كران هذا بعيد ما هي تجارة الإلكترونية هي التجارة العادية هذا هو وحوي قف قاب كو صحيح هي عقد إن بدل كم العقود وحلوا بعضها صحيح والله قف ولا تشوجي شيء بسيط أو غير كلا جرنا يحلقي مكاين سكاين لو خلقات العقد هي بالعالم لكن شركتها هذا بالتأفراد قار كود قرالي كلا سمستان qoraalkii haddaan labadii qof goob wada joogin wuxuu u baahan yahay wax ta'kiidiyo hubsimo in la helo in cidda halkaas soo fadhida ee la hadlaysa ama qoraalka soo samaynaysa ay tahay ciddii macniga ahayd ee loola jeeday heshiiska marka waxaa la yidhaha atawqiic al-elektroni waa saxiix elektroni waxaa jira tawqiic caadiya ama saxiix caadiya oo macnihiisu yahay warqadda heshiiska lagu galo hebel waxaan ka iibiyay anoo milkayga iyo baankayga qaba ee guriga ku yaalla meel tilmaamaha iyo jumooyinkaana lacagtaas intaa laga bakasi ka kale intaa laga boqoraya anoo hebel hoosaas oo magaciisa saddexaan waxaan ka iibsaday guriga qiimahaas aasiis anoo raalika kadibna hoos baa laga saxeexaa saxeexaas wuxuu noqon karaa mid qalin loo adeegsado waa ka caadiga wuxuu noqdaa in qofka suulka laga saaro wuxuu noqdaa in shaambad qofka khaas oo ku dhufto كامل لمدة بالغة دولة يشتري إلكترونية أو جودانية شقوي كصحيح عادية هو جودانية مركا أنت أي مشاغني وقرانية إلكترونية لكن وحو دارية هي لبا شيء كواد أما كجدوي هي لبا شيء كواد صحيح حني إلا قفك سو شوقة قوبته والأرك يايو أفكنا وكله يجعلنا وصحيح يايو مدن كم جرى إنه مركز دي عقلي يسوي قليل وصحيحي لكن قف كم مكان وحلا بقى يتهوي دي سئل وقال يعني قف كان شخص يقول هاي الله وحلا دون يا إلا هلو عضين أهينه أو قلانش السمي تهب الله بس صحيح مركز إلكتروني قال وحكومتنا يا
وعضينا يا قفنا إنه هشيس كرالي كيها وعكلوا عضينا يا شخصية قفك اللفتيس عدة وياها قضب كلابات ساعة إلكترونية وكجد وياها وهو النظام كريا وحيابك للدول وهو النظام كريا حرف وهو النظام كريا كرو وهو النظام كريا علامة وهو النظام كريا هذا الضوبان وقف ملكو هذا مكان كان بدأ يشيس كذا معاملة عدك اسمه كم غشيني وسائل كل الدول توقع إلكترونية يعني وهو النظام كريا ميل كليك نسيه والنظام كريا مكا توقيع إلكترونية يعني رموز هي علامات هي حروف هي أرقام هي قرآن هي هذا هي أنواع كل الدول بالنظام كريا توقيع إلكترونية يعني سنة وقضب لبعض كل الدول هي معاملات عادية إلكترونية مجمع الفقه الإسلامي أيها حلو ويدي أما الله صبر لي المسألة ضدك معاملات كل الجليان وسائل كان إلكترونية كدنا وحي كصوص على الفتوى أي كنت المامية أحكامتها أريكا سؤولية أحكامتها مركا وحلوين نقول يا قاراتك مجمع الفقه الإسلامي لكن مركا لصو قابيو وحا المامية أما الليلين إذا تم التعاضد بين الطرفين في وقت واحد وهما كانا في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعد تعاقد بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المغاردة لدى الفقهاء المشار إليه في الديباجة هذه تعاقد يجوز كدعي الله بطرف وهذا بعد ما هيو كلا فوق لكن اسمق ليا ومركا لو طبقي كرا تليفون كي جهاز كلا سلكي اللي وار الناس اللي يراهدا iyo wixii la mida eliskaas waxa laga soo qaaday laba qof oo wada joogo oo kale kaamta marka waxa lagu dabaqayaa caadiga ah ee hadee bayd ma hayo heshiisku u leeyahay waxay kale yiraahdeen إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو الرسول وينطبق ذلك على البريد على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإجابة إلى الموجه إليه وقبوله هذه اللي بدأ في كلفوجهم كلام قيهم تقولون كلام أركيهم هذا الإسلاك جارين أي مركز صدران فرين أما قف صعونية أما قرال أما وحلا مدة تاسو مركز لو طبقي كذا يو تلكسكا يو فاكسكا يو سكرين كان كمبيوترنا يوحي لنا بالآلات اللمتكا waxay husas kuntamaya marka uu gaadho qoraalku qofkii loo jiheeyay heshiiska lagu waday inuu aqbalo وأيضا إذا صدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محددا المدة يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه. هذه قفل هشيس كصور بندق المدقة بصدور مدداس قف كستو ومركا أقبله شيس كان صحيا هذه مددي سعته وقف هشيس كأقبله ودي إذا لقى يلي ماي كمان نقول كذا إلى بدو ضمات هذا ضماتنا هوش أسوأ ضمات. وأيضا إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعديل رأس المال. وها أن يكور الني وأن يسيس مقاف نوع سودعي كريم صدح شيء سوق لما يكون بنانا أما قاعدة كأنه الشغلة صدح أريمود وأنصح مايا مقاف نوع سيس لو قالوا ووسائل كانت تقول قال له فريو كم جودك ويقولك مرخاتيو باهي مرخاتيو أيوب باهي طلب كلمات صرف كالعلو وأنصح مايا بيده ويسنو باهي كلا قدوم عكس اللي كنا قدومه ودقدقة وعكذا كان صحيح بيلاهدين سلام كمعني يسويهاي قفوا إنه شيء قطع عن حل جاتشين أما تشوجين حددنين أو شيء أنا هاي لكن تلمامين يصير مواصفات يصير لحد لي
xilli go-aan la qabsay lacag lagu bixinayo fadhigaas ama miiskaas ee lagu shirayo meesha lagu geliyo marka sanadkaas ku ansixi maayo in lacagta markaaba la dhigaa dee shardiya مجلة مجمع الفقه الإسلامي بالغي عدد كلحاد فسك اللبات صفحة كل أبغى إحنا يتضبط إلى كل أبغى إحنا يسدين هذين مركا كجود بنو أحكام تجارة إلكترونية أو لو رأيك لو حيابها كلا سوق يعني مبدي بدنا أو حاكم من نقول كريا أراد سيلو كلا قدومي هلو كلا قدومي هاد بقاب كلهم شيء waxaa dhici karta waxa la kala iibsanaya inay yihiin barnaamij elektroniya iyo marka barnaamijta iyadu markaba waa la heli karaayo markuu qofku aqbala gudasiga barnaamijkii baa loo soo deynayaayo dabeedna uu ka faa'iidaysanaya waxaa dhici karta inay tahay haddee beenayo badeecada markaa qaabka loo kala guddoomayo waa qaabkii lagu heshiiyey goobtii iyo muddadii iyo haddee been mahayo duruuftii kale ee lagu heshiiyey ayaa markaas isku guddoonsiinaya haddaan goob la xadidin majalada al-ahkaam al-adliya waxay ku sheegeen culimadu in goobta heshiisku ku dhacay ama goobta alaabta ay taale marka heshiisku dhacay in ay noqoto goobta kala guddoon waa haddii labada qof ay ilaawaan ama ay u qasdaanba inaanay goobta cayimin goobta alaabta xilliga heshiiska taale baa noqonaysa goobta kala guddoon ma'uunada iyo kharashka alaabtaas kala fog la isu dirayaa qaba waxaa qabaya haddii alaabta mu'uunadeedii kharashkeedu uu yahay xidhxidhid iyo kartoomeyn iyo miisid iyo hadday waxaa tahay ciddii baayac ahayd baa qabta haddii alaabtaasi ama waxaas ay tahay guriyo guddoonkeedu waxaa weeye altakhliya watamkiin min tasarruf in qofka gurigiina loo banneeyo ama dhulkii loo banneeyo inuu aqbali karana loo fasaxo haddii alaabta ay tahay manquul wax la naqlinayo oo la kala gudbinayo guddoonkeedu culimadu waxay u celiyaan inta badan curfiga iyo caadada beledkaas hadba sida ay tahay haddaanay markaa iyagu shuruudo gaara ayeen gelin marka axkaam atjaara elektroniya intii caamka ahayd waxaan uga kaaftoomaynaa ilahaas waxa aan ku ladhayaa oo keliya qoraalku la isku diraya haddii wuxuu qoraal iyo qaabka loo heshiinayo dee qoraal cad inuu yahay culimadu leeyihiin oo la fahmi karayo marsumna waa inuu yahay oo qoran yahay qoraal wax la akhriyi karayo oo faahfaahsan oo cad waa inuu yahay shuruudii kale caamka ahaa qofku inuu si yani togan ama jaan go-an u sheego heshiiska oo aanu gelin ixtimaal inuu ehel u yahay heshiiska galo oo qof qaangaar oo caaqila oo baaliq oo mutasarrif oo rashiida ama jaasi taraf inuu yahay in alaabtii badeecadii xalaal tahay oo ay mubaax tahay oo shay lagu intifaaci karayo tahay oo la awoodayo in isguddoonsiiyo waxaa filaya fadhigii hore baynu ku faahfaahinay qodobadaas oo dhan haddaynu u gudubno haddee bayd mahayo barnaamijkan forecaska ah oo bayna qawsayn cinwaanka looga dhigay sumad waxaynu ognahay forecasku waa foreign exchange afka qalaad waa sarifka lacagaha qalaad sarifka lacaguhu kala duwani dee noocyuu noqon karaya wuxuu noqon karayaa sarif nuquud ama foreign exchange oo dee meel ka wada dhacayo caadiya oo physical ama xisiya sarifla halkaa fadhiya lacagtooda dhiibaysaa waa heshiinaysaa dabilkeeda kusiina waa kala tegaysaa ta laga hadlayo horta taama waa online forex week oo macnaheedu yahay foreign exchange-ka online-ka ah ee wasaa'ilka electroniga loo adeegsanayo haa laftiisaa noocyo ah nooc waa in qofku haddii bayd mobilkaaga visa cardka ama wax lamida baa bangigii lacagta guudisa la macaamilaysay baa wuxuu ku siinaya fursad ah inaad lacagtii sarifato dabadeedna ATM-kaasaad ka taabanaysaa meesha sarifka ah lacagtaas saribaysa markaana waxaan haystaa $1 ahaan bay ugu jira yuuraan ku doonayaa bedelkeedii buu ku siinaya account-kaagana wuu kugu qaydaya laakiin bangigaasi isla ATM-kaasa waxaa laga yaabay intaad kaarkii geliso inaad tidhaahdo €1 doonaya iisoo sardabina €1 kuu soo daadiyo micnihii wax la isku daah leh
معها وصرف كي لعجها ووسيلة الإخراج اللي أديك سدي لكن سوق عالمي إيو بورسوي إيو بروكر ميل شغل ولا سيمر معها هذه عد قال لما عاملي أما شخص هالنقطة أما شركة يبقى هالنقطة وحيننا مركب واحد كذا قارن السلسلة دقيقة يعني صارت كمان كذا عي آلة الإلكترونية دحديدة لكن العكس بعد واسعة بالسيارة هذا أول سنة الواحد هذه صاحبته وأقاربته تاعوا المدى معاصرين تاهي ويكهر لي وحانيت المامين إن هذا بعيد ما هي أي بنان تاهي مجمع الفقه الإسلامي يجوا كهر لي قبض العمولات كان أما هذا بعيد ما هي القبض صوره المستجدة ومنها وأحكامها يجوا كهر لي مؤتمر كل حال جدا كدعي وذكاء السعودية تضبيط وكي لثلاثة بشي شعبان كل يافر بغلية طوانكي وافق السنة الأبدة طوانكي بشي هذا بين ما اللباد على سدحان مارس وسيابغض سياشنكي waxa ay tilmaameen markii ay dhageysteen buxuufta iyo baarisada laga keenay qaababka cusub ee loo kala gudoomo lacagaha waxay go'aamiyeen arrimahan oo ay kamid tahay إن من صور القبض الحكم المعتبرة شرعا وعرفا كون القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل لعكتب وحلو قيدي أكاونكي كاستمركه بالغو قيدي أما لو إضافي لوجي هذا بعيد ما هيو وحلقة سوقارية العكاس إنه قدومي حالات كذا وحا كاملة لعكتي بوحا لبقى كونكيس أما ستوسا أما حولاد بصوبش وحا كاملة صرف دقدقة إذا عقد العميل عقد صرف ناجز وشرط وعقد صرف دقدقة بينه وبين المغرب سري يبقى يبقى على صرفتين العين في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل يعني كارنسي وكارنسي كل كوجاتي أما العقد نوع كله كوجاتي بنك يقول لما عاملين كوجاتي البرد سجاسة صرف كوا دقدق وبيسوه هنا وكلا بحية كاسنا حكم دي هاي ودون كله وقلية وحكم ذا بيداد إذا اقتضى المصرف بأمر العميل مبلغا من حساب له إلى حساب آخر يعني أكون كيسي وكسر العق أو أكان كلا أيو العق كلا أيو كشبي وصل بنك اللفتيسية في نفسه أو غير أو بنك كلا لصاحب العميل أو المستفيد الآخر أما لبلا أكون بيسأل أمنا سأل من كلا له مرة تصنيع كم بتاعي العق هذه بكسر سأكون كلا دور بيهاي إذا كان كلا يوراك وشقيات كحوشي صارت وكان حد عيد بنك دحديسة أما حتى بنك كله أكاونت أكاون ويه لكن والناجز ومركا هذا بالعكس كل عذابه والله بحيسة أما حتى يصير بنك يسيب الله ده هاي أما ATM يدا تيجي يسوي كلام بحيسة هو وضبطا هلا حسوسته وحبل ما كل سيادة إلى هاي ويغتفر تأخير القيد المصرف في صورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل آثر القيد المصرف بإمكان تسليم الفعلي وحي هذا الوحاضع كرتا إن هذا بإذن ما هيو بنقياد إلا بنقيو كالفوق أما هذا بإذن ما إجراءات نقاطان إنت لبضع أكون كلا الدول إلا بنقيو كلا يالا marka kan ka xawisho lacagtii ka dirtay account kale ku dirtay iyadoo lacag kala ah ka intay u gudbisay in muddo qaadata laga yaabo muddada inta badan waxay culimadu yiraahdaan waa yawmay amal waa laba maalin shaqo oo kamid ah muddooyinka bangigu ay shaqeeyaan yani bangigu hadduu 5 maalmood shaqeeyo oo مثلا ka bilaabma sabti ilaa arbaco maalmaha sabti ilaa arbaco laba maalmood oo kamida baa dhici karta inay qaadato amaliyada in account-kaaga lacagta ka baxday kala gaadho iyadoo oo sarifadooda nooc kale ay gaadho waxa dhici karta intaad arbaco lacagtii sarifto in jumco iyo khamiis bangigu xidhan yahay sabtidii kala aad gaadho muddadka noocaas ee duruufta shaqada bangiyadu ay sababtay waxay leeyihiin waa la iska cafiyayaa qaabka noocaasa
ظروفtaas ayaa keentay waa la deyn karaa laakiin shardi bay ku xidhay waxay leeyihiin على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة قفكي العقد لحولي أما الله صرفي قال لي يستفيد كأها ومبنى العقد إنه كنت تصرفه سي إيبيو سيو وحكو إيبسدو كنت تصرفه مدة لحية إلا العقد في فعلية أوها وقاس معدية waxaa leeyahay lacagtii xitaa hadday dhacdo bangiyadu kala duwanaanshahooda ama fasaxyada soo dhex galay ama ijraa'aadka bangigu uu sababo lacagtii sarifay inay daahdo oo hoo iyo hoo ay mid noqon weydo waxaa la aqbalayaa sarifki laakiin shardi baa lagu aqbalayaa lacagtaa dambe ee lacagta lagu sarifay haddii markaa aad haysatay dooro oo aad euro u bedeshay yuuradaa ma isticmaali kartid ilaa aad si fisikala lacagtii u guddoonto ama u guddoomi karto micnihii markay kuu bannaanaato lacagti inaad la bixi karto baa lacagtii isticmaal hibo siin wax ku gadasho wax ku garaysi yacni mucaamalaadkii caadiga ahaa sarif labaado aad ku sii gasho xilligan baa markaa samayn kartaa waxaan usoo hormariyey aqwaasha majmac alfiqh alislaami in nunuudu hadho oo la ogaado masaa'ilkani wadaad baa meel ka hadlay iyo qof baa ra'yi fardiya qaatay aan ahayn majaamic fiqhiya oo macnaheedu yahay culummada islaamka oo dhan baa intay fadhiistaan masalada baara dadka ahlu ikhtisaaska ah weydiiye masalo walba hadday dibbi la gashay caafimaad dhakhaatiirta u yeeranayaan way waraysanayaan from A to Z alif ilaa yaa way waraysanayaan wixii bay baxsi ku samaynayaan baxsigii bay niqaashayaan mudday qaadanaysaa waxaa laga yaabaa intaasoo fadhiyo kala duwan inay qaadato iyagoo wixii ka dherigsan oo fahamsan oo aan labsi iyo mugdi midna kaga jirin bay markaa qoraallada noocana ama qaaraadka iyo go-aamada ka soo baxa majmac alfiqh islaami tamhiidka labaad ee aan doonay foreign exchange ka horreysay waxaa weeye sarifku wuu ka duwan yahay mucaamalaadka wax kala gadashada caadiga waa inagii ka hadlaynay fadhigii hore kaga hadlay dawaabidda cuquudda mucaamalaadka maaliga ah inay ka mid tahay waxyaabaha cuquudda iyo heshiisyada ganacsiga ku xaaraantinimaabaan wax la yidhaha ribo ribadaasi waxaynu ku tilmaannay inay laba nooc tahay riba alquruud iyo riba albuyuuc oo macnaheedu yahay ribada daynta ka dhalata iyo amaahda waxqardaysiinta oo markaa qofkaad wax qardaysiiso ama wax amaahiso wuxuu doonaba ha noqda haddii aad intifaac ka dalabto ama ku shardido sababkiisu yahay qardigaa aada siisay dartii waa ribo mana bannaana waana riba aljaahiliya oo tii jaahil ku dhaqmi jireen waana ribada qur-aanku ka wadamay ribada labaad waxaa laha riba albuyuuc riba albuyuuc waa ribo gasha ganacsiga oo kale iibsiga il deen ma gasho ribadaas xadiidyo badan baa nebi sal alla alay wasalam laga wariyey uu ku tilmaamay waxaa ka mid a xadiidkii cubaadat bnu saamit radia allahu tacaala canh ana nabiy sal alla alay wasalam qaal الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد حديث كاسوت المامي لحسن فيه وكمل وحلك لقدرني إن ربضوا أي قشو وذهب يفض وقلل يذهب timir iyo qamandi iyo heed iyo milix culummadu laba qabood bay u kala saareen dahabka iyo fidadu waa isku nooc ama dhahda waa isku hadee bicillo oo waa asmaan waa lacag waxa ay ribadu u gasho waa lacagnimo wax kastoo lacag noqdaana la xukumay noqonaya afartan shay ee kale cuntooyinka culummadu isku khilaafsan yihiin ma cunto oo dhan baa la noqonayso shay walba lagu iibinayo mid lamida waxaa laga doonayaa labadaa shardiya ah inay isku mid yihiin iyo inay markaba la kala guddoomo mise waxbaa ka bedelan qaar waxay waa cunto oo dhan qaar waxay cuntooyinka waa wixii la beego ama la miisaamo la miiso ama la miisaamo wala waxay yidhahdeen maye waa cuntada la kaydiyo haddee bay la quuto wey waa qowlka imaam maalik waana qowlka culimmadu ay leeyihiin ugu rajaxsan yahay cuntada quuto dawriga ah 60 shay kaliya maaha ama 40 shay cuntooyinka kaliya maaha wax kasta oo la cilla ah oo in la quuto
la kaydsadana geli kara la xukun bay noqonayaanoo axkaamta aynu sheegi doonay la wadaagay axkaamta xadiidku sheegaya maxay tahay labadii nooc aynu u kala saarno dahab iyo fido iyo lacag oo dhan halkaa iidhi cuntooyinka la quuto la kaydsadana halkaa iidhi laba markaa waxaa weeye laba qaybood oo waaweyn qaybtan ii soo qaad lacagta oo kale lacagta marka lagu gadayo mid lamida dahab baa lagu gadayaa fida iyo qalin baa qalin lagu gadayaa door baa door lagu gadayaa hadeeba idmaha iyo shilin baa shil lagu gadayaa laba shardi baa laga doonayay shardi waxaa weeye in lacagtaasi isla egta dahab 10 garaama laguma gadi karo dahab 8 ama 9 garaama xataa hadduu ka dugsan yahay xataa hadduu caydhin yahay kana uu yahay mid laga dhigay silsilado iyo kaatumo iyo dhago dahab waa dahab wey garaam sayn baa la isku iibinayay qalinku waa saasoo le saas le doorku waa sidaas le qodobka labaad ee leeyahay waxaa weeye hoo iyo hoo baa lagu kala gudbaa laba kala dib dhigi karay macnihi waa in dahabka hoo iyo hoo yadan biyadin soo ma aragtaan waa hoo iyo hoo baa lagu kala guddoomay haa wa haa xadiis riwaayadka qaar nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu tilmaamay haddii intan isku jinsiga ah ama cillada wadaaga aan idhaahdo oo lacagnimada wadaaga marka la isku gadayo waa la kala badin karaa faida ikhtalafat alasnaaf fabiicu kayfa shi'tum ida kaana yadan biyad macni dahab baa waxaa lagu gadayaa qalin door baa waxaa lagu gadayaa haddee baidmaha iyo shilin ama yen baa waxaa lagu gadayaa geni israliiniya waa la kala badin karaa laakiin shardigii kalea taagan maxay ah hoo iyo hoo lagu kala guddoomo aan la kala dibdhigin haddii la kala dibdhigo riba nasii'a baa la yidhaahdaa haddii la kala badiyana shayga isku midka ahaana riba alfadli baa la yidhaahdaayo dheeraad baa meeshii soo baxay cuntooyinkuna waa saasaa lisleeyay cuntooyinkii la kaydinayey ee la quudanayay marka shayga mid lamida lagu gadayo labada shardi baa laga doonaya bariis baa bariis lagu gadaya xagga kiilooyinkana way iskaga mid yihiin hadduu la kiileeyo haddii la miisana waa xagga miiska iskaga mid yihiin xagga haddeeba idmahayo degdegana hoo iyo hoo lagu kala guddoomaa waa haddii nooca cuntada isku mid taha hadday laba cunto oo la quuto oo la kaydsaday laakiin kala duwan yihiin hadhuur baa lagu gadayaa bariis waa la kala badin karaa 1 kiilo oo bariisa waxaa lagu gadayaa 2 kiilo oo hadhuura laakiin shardigii labaad baa taagan oo maxay ah yadan biyadi waa in hoo iyo hoo lagu kala guddoomaa haddii kala ribaa soo gelisa la yidhaahdo riba nasii'a intaa haddaynu ka gudbino waa xaaladda saddexaad qaybahan lacagaha mid ka mida waxaa lagu gadayaa qaybahan cuntooyinka mid ka mida dahab baa waxaa lagu gadayaa bariis doolar baa waxaa lagu gadayaa hadhuur labadii shardi midna lama shardiyo hoo iyo hoona lama shardiyo waa ka dibdhigi karaya isleekaana lama shardiyo wixii intaa ka baxsan ee iyagu cuntooyin la quutana aan ahayn lacagna aan ahayn iyaguna waa kasii fog yihiin oo amwaal ribawiya baa riba waa ma gasho iyaga riba albuyuuc baa gelina la soco oo aad sii ganacsiga laakiin riba duyuun way galaysaa haddii aad low dhagaxa nin amahayso ma odhanaysid badinta laba lowroo dhagaxa ii keen ama xitaa intifaac kale low dhagaxana ii keen haddee baidmahay barkadaadana aan biyo ka qaato gudi baan dhisayaayo lama ogola ribadan maxaa loo diidan yahay ribada waxaa loo diidan yahay riba duyuun ama riba albudud waxaa loo diidan yahay waxay samaahintu waa baabulixsaan iyo baab samafal haddii markaa lagu shardiyo intifaac oo leeyahay qofku wuxuu amaahinaya waa inuu wax ka heli karaya haddii la yidhaahdo baabkii ixsaankaa xidhmay qof waliba ciddii uga soo baahata ama dee wuxuu ka dhigaya haddee baidmahayo wax lu weydiisanaya marka baabkii samafalka baa xidhmay qodobka labaad shareecadu haddii aad macaamil gelayso aad ka doonayso bedel iyo mucaawado dee beec bay ku banaysay oo albaaba kale lagu fur laakiin kani kii wax laga faaidi jiray maaha ribada gelaysa lacagaha ee haddii shay labada lagu iibinayo aan la kala badin karin ama aan la kala dibdhigi karin ama hadday kala duwan yihiin aan la kala dibdhigi karin cilladeedu waa ma cilladdu waxaa weeye asmaantu ama lacaguhu waxay qiyam iyo qiimo u yihiin haddee baidmahayo ashyaada waxay magdhow u yihiin mutlafaadka iyo waxyaabaha la kala magdhabanayo waxay miisaan iyo halbeeg u yihiin sicirka badiicooyinka waxay culimmadu leeyihiin miisaankii wey haddii miisaanka lagu ciyaaro isagu khalkhal uu galo waxaa dhumaya macaamilaadkii oo dhan baa lumaya waxay leeyihiin kal mir-ah waa sida muraayadda oo kale
لا لون لها وتحكي كل لون iyadu midab male iyadu shay laga faa'iido oo lagu mashquulo ma aha laakiin midab kasta muraad way iyadu midab male adigu la midabeeyo buluug la mariyo ama casaan meel la isku arkaya Soomaaliya ma sidaas leeg baa lacagtii haddii iyada lagu waasho oo qof dan waa yeelan kara sarif waa yeelan kara oo ah inuu dee muraad qulsado oo sarifkii lacagaha qala dhoofo meelaha bal sarifna waa loo kala dhib mar laakiin marka iyada uu lagu dhex wareego oo iyada talaacub iyo ciyaar ku timaado sida aan tilmaami doono forex-ka wuxuu sababayaa dabdaba iyo hadaba khalal ku dhaca suuqa hadaba ganacsiga iyo lacagta labadaba adiyada lagu mashquulo hal deegnimadii bay ka tagaysaayo miisaankii baa lumay marka sarifku wuxuu u baahan yahay markaynu dib u khulaasayno haddii waxa laga baacbashanayaa ay lacag tahay hadday isku mid tahayna waa inay isla eg yihiin markaana kala guddoomaan hadday lacag kala duwan yihiinna waa la kala badin karaa laakiin waa in markaaba la kala guddoomaa intaa inagoo haysana aynu u gudubno forex maxaa la yidhaahdaa ama forex haddee beenmay qaabkee ayuu u shaqeeyaa forex-ka marka ay culimmadu tacriifiyeen waxay yidhaahdeen almudaaraba bilcumulaat fi bawsaatiha addawliya binidaami alhaamish min khilaal wasaa'il الاتصال الإلكتروني وإن قفكو كجمع الصدوق كارنسيس كأما عملات كالعجها أو سوق دولي جاه وكجمع الصدوق يصدقوا أديك سنة نظام الهامش وحلي ده مش شرح الدونا أما هذا مرجنك وسائل كي آلها الوحدة الإلكترونية على الاستعماري مضاربة هكذا اللي بقول شيء ما هو مضاربة شرعية هي قال بدل كده وخصن ومودة يا مضاربة إن تي أحكامتي عادي هذا قفل عادي تكون وأدودي وتكون شقي خاصمة ونوع كدول أبكي مضاربة كلي هنا وسيبوا كحدانة لكن مضاربة معها وأنا شرح النقاب كي يوضعه قاب كي يوضع ده وحوي أولا قفل كاستمر كاهي وحرير لا سمينيا شركتها وسادة أما دلالة ده سوق عالمي كده شغيستا شركتها أصلا حريريا وحي مركا كل شيء يان أكون إن لو فر أكون كان العقد الشبه نعم بدو كرده أما شركتها وسادة دلالين بدها ده دون تسوق كده شغيستا يا دونتها وقال بابكو يقانو niman kaasa qofku wada heshiinaya inay sarifkaas ay u ogolaadaan wada u noqdaan oo sarifka lacagaha ee caalamiga ee bulshooyinka ka dhacay wixii la mid ah ay markaa isagu iyaga u maro account baa markaa hadaba idmahayo ay u furayaan lacag budigan lacagta hadaba idmahayo inta badan lama isticmaalo هذا مثلا تهي $10,000 لعكس واحد لو قيبيا يوسب ميرجي إيو يوسبل ميرجي ومعنى دي هاي من لا استعمالي إيه من لا استعمالي كانوا أو قل إلا استعماله طبعا يكون مثلا كم بيكدي جيانتي الاستعمالي أما هامش مستخدم تستخدم كان الاستعمالي $1 أو سوق عالمي يتشوجا وحركة ما ترى waxay u sameeyeen marka shirkadahaasi wax la leverage ama raafi amali lacagtii bay u kordhiyaan wuxuu ogow oo lacag cad oo xaqiiqo ama ah lambarkii meesha akoonka ugu jiray ee kunka $1 xisbiga ahaa bay boqolkiiba laba laabayaan oo boqolkiiba bay ka dhigayaan lacagta leverage-ka asal ahaan lacag xaqiiqo ah oo qofka la amaahiyay ma لكن والله كوبان هلكا شاشة إلكترونية أما آلة اللوفري يهدم موقع اللوفري كلية وكرح مع عمليين هذول العكسية مهلي كلام هذول هذا ألعاب كلام قالوا لي مهلي هذول أكون كي قام شفتي وحيل يوصل شبع على لبحه لقيه المالي واي وهي عمل اسكوها أيام العكس النوع عاسي ما لعب عادي أو بنجي لا يسوى أماهدي أو بدل كسوى أماهدي أو بنجي بحيي أو صحبة مسوي حوي اللي رجل الباب في خلق النقود
أما توليد النقود ومعناه بيهاي بنجيل العقد رشيد كي هيان ربطة وحي أودان إن أودان متكبرا أو فربلا هن أشرح يا إن لا نصعده خلق النقود كو حوالي مثلا بنجي بقى وحال دكتي طبعا كن أو دولار طبعا كمركي أنا دكتي أكون بيوفر العقد وشمل وحي قيدين أما ديوان قليل طبعا كن إيطال طبعا كي يكون أحمد جامع يكون غريب شرح عبد الولي بقى يجي يقول الدين بان ذيك الدولية شنكون أما اللي حكم تطبقون وحيود إليه العكس أنو على سينا بحيان وشرعا إيو النظام لبضل وبنات وحيكرر يبان لعجر احتياطي وبقول كلا لباطن نظام عالمي قاعد لا شيء لا تميلها أنت كلوي بحنية قب محمد شيخ محمد بأمانيين مثلا شيخ محمد العسمي العكسي شنكون بأمانيين شنتكم بو أكون بكشفت أكون لباط بالفريان أكون رمت الشيخ محمد عبد الولي ميغا كفرة شنكم كيجي محا كفرة طبنكم العكس سؤال بالزوجين تيد شان يتبنكم وي أصل كذا محوها طبنبوها قف صدحات بايمي ما هاد بايمي مثلا الله الشيخ مصطفى بايمي بعد أماه السيئة إمي صدحكم بيسيئة صدق مركز سيان أثناء كون بقدر صدق لي بوابك صدق لي بوابك أكون كشغل مستقبل كقرن وحمر كانوا سيدهان قرن طبعا كنا عليه أي هيان ونقود قيدية بني لهذا هي شرط شرها عبد الولي أو هيان هي صدق كنا أو هيان شغل مستقبل سجين تدواي مسا سيدي يفهم العكس كان بنجيد هيان يقرأها بني هودا يا عيسى لعب حقيقي يومين تالو كوسكوسان أو فربلان وتريد يوعد سوى فرسين الماء والعقل إلى قبلت من باب خلق النقود لعب أبورد أما العكس يساء ترتيبه كادرون تكري تين نقطة وكجوابنا إن شاء الله تعالى هذين النقطة العكتة أنشرين هودا مرسا وحاول يد باب في فرس واكو داي وايد قفكو waxaan hantiyahay ka baac mashari karo wanaga ilaahay wax laga bixin waa in wax banaan waa in wax lagu intifaacayo waa in yahay de hanti waa in yahay marka horeba waxaan hantiyahay laga baac mashari karo la tabic ma laysa indi hadii ay noqoto hadii bayd ma lacag bangigu hayo amaahi ina wada insha Allah taala waa soo socda marka marginka ama hadii leverage ka ilaahdo baabkiisu waa nooc leverage ka bay fara leverage kaas laba mid in بروكرku uu lacagta hayo isagu hadii ay ka soo qaadna lacag isagu amaahiyay ka soo qaadna lacag xaqiiqi saas lagu wadayna ka kale insha Allah waa sheegay laakiin kan ay doonayaan inuu wadana lacag caadi ah tahay is amaahiy بروكرki lacagta inuu amaahiyo qofka customer kana waa dhici kartaa isagu lacagta uu badiyay isagu amaahinay inaanu isagu haynin ee bank ka soo qaatayna waa dhici kartaa oo hadee bay inta badan banku ka soo qaad inta badan nin dilaali boqolka kun qof iyo kumaanka qof ay lacagta leverage-ka uu siinayo de haduu malaayiin lacag ay shaqo shaqaysan lahaay bangiyada la macaamilaya bangigu marka inuu ka soo amaaday badan marka bangiga amaahiyay brokerka wuxuu amaahiyay customer kan hada brokerkani wuxuu ka faa'iideeyaa waxa brokerku wuxuu faa'iideeyaa saddex lacagood kala duwan marka koowaad lacagtan qofka la amaahiyay waxa laga doonayaa hadee baid ma hayo commission haddaan commissionka brokerku kugu shardin oo ka qariyo isaga waxa ka doonaya bangiga oo bangiyada gaar lacag bilaashada kama amaahiso qarda xasan ma yaqaana marka amaahdaasi inay faa'iido ku shardiyan tahay waa yaani sida laga baxsan karo ama brokerka kugu shardiyaya oo oranaya lacagtoosan ka doonaya meesha ama uu ka qariyay oo qolada forex-kan islaamiga ah ugu maaweeliyo waa laga qariyay waxba ka doonmeen laakiin ogow oo brokerku ciduu ka soo qaaday oo bangiga ahi ama ahdan bilaash kuma bixine commission iyo interest bay ka doonaysaa taas waa qodob marka commission ka brokerku qaadanaya waa qodobka labaad sarifkan la sarifayo ribaxa laga helayo wuxuu ku leeyahay nisbu kuleeyahay broker wuxuu ku leeyahay faa'iidada qodobka saddexaad
inuu aad ka dhex shaqaysato soo dhex martay oo isaga debe mowqiciisa ama baabkiisa aad ku shaqaysanayso waxbuu kaaga doonaya oo hadduu ku idhaahdo kaa dooni maayo anigu commission amaad kaaga dooni maayo laakiin dee anaad imaraysaa wuxuu kaaga doonaya haddii bayd mahayo khidmad haddii markaa amaahda kalaba la reebo oo aan sidaba u hadhi karin oo isagoo hadduu daayo bankigu aanu daynaynin haddii taa la reebo shardigan kalea meesha yalloo ah aniga ila waa inay soo martaa iyo in khidmad asaysa wey nabigu sal alla alay wasalam wuxuu leey laa yaxillu salafun wa bay amaah iyo iib isma galaan amaah iyo iib isma galaan amaahdi markaa uu bixinayay browkerku waxaa dhex socda ama haddee baid maayo ku lamaan heshiis mucaawado iyo wax isweydaarsi oo maxay ah anigu aan wakiil kuu noqdo faa'iidada aan kaa qaato yacni khasama aynu beec noqdo cuquudda mucaawada oo dhan iyo tabarruc isma galaan ayaan kalena waynu sheegnay cuquudda mucaawadaadka iyo cuquudda tabarrucaadka la iskuma shardiyo idan browkerkii dhanna waxbuu kaa amaahiyey dhanna intaasoo haddee baid maayo faa'ido kaa qaadanaya axaadiista nebiga iyo ijmaac culamada kuma banaana qofka wax amaahiya inuu qaato haddee baid mahayo inuu qaato faa'iide iyo intifaac noocu doonaba ha noqday oo inaga sheegay riba duyuun macnaheedu waa saas wey walidalika culimadu waxay qaacideeyeen axaadiis ahaan baa loo sheegay lakin xadiis ahaan ma ansixin waxayse u ansaxday qaacida fiqiya culimadu isku waafaqsan yihiin kullu qardin jara nafcan fa huwa riba marka waxay ku shardiyaan inuu yahay nafcigaasi mashruud kullu caqdin jara nafcan mashruudan fa huwa riba heshiis kasta oo mucaawado oo aan idhaahdo heshiis kasta nooc doona ha noqde oo amaaha oo soo jiiday faa'iido lagu sharciyada wax la amaahiyey waa ribo aahaarta iyo haddee baid maahayo ijmaac culimada arrinkaasi waa ku sugmay ibnu mudirna kitaabkiisa ijmaca kusoo naqlinaya halka marka waxaynu aragnay in ninkii browkerka ahaa waxna amaahiyey qofkii laabres lagu magacaabay amaahdaasi ama ha noqoto lacag xaqiiqiya ama ha noqoto mid beenbeen oo hawada maraysa warkeedi waa arag waxaanu nidhi haddii ay tahay waxaan xaqiiqaba ahayn in lagu baacabshiraaba ma ansixin waana sida ay u badan tahay eberada halkaa maraya ee qof kastoo inaga mid hadduu maanta galo qof kasta waa loo miisaya kun baan dhigtay milyan baa lay siinaya 100 kun baa lay siinaya adaa dhigtay haddii malaayiin qof caalamka soo galaan qof walba 10 ziro baa lagu daraya 100 ziro maxquul miya lacagta intaa lay baday wadku iska hayo suuragal ma idan lacagtaasi waa lacag aan jirin xaqiiqa ahaan mana dhaafsiisna inay tahay arqaamta ku wareegaysa shaashadaha iyo haddee baid mahayo iskriinada ee aalaadka la adeegsanayo haddii ay noqoto lacag dhaba oo la samaahiye aan idhaahdo dhab yaan odhanay lacagu hadday tay la samaahiyeyna amaahdu inay ansixin bay u badan tahay adil lacag islaamaaniinteeda waxaa ku shardiyeen fawaa'idka aynu tilmaanay walow xitaa haddii ay lacag tahay mar haddaan la guddoomi karin amaahnimadeeda ishkaal baa ku jira oo waxaa yacni cuquudaha mucaamalaadka iyo heshiisa mucaamalaadka waxaa loo kala galaa in raad ka dhasho waynagi lahayn irtibaadu iijaabin biqabuulin calaa wajhin yahbutu aw yadharu aatharuhu fii maxallihi waa in heshiiska bandhig qofkii wax la milkisiiyey iyo tamalluq uu qaatay ama aqbalay heshiiskii labadaas waa inay isku xidhmaan asarkooda iyo raadkooduna shaygii heshiis ku dhacay uu ka muuqdo marka lacagta laysiiyo hibo ha noqoto ama ha noqoto haddaanan qaadan karin oo ku intifaaci karin oo ciddaan oona siin karin oo waxaad oona ku iibsan karin dee amaahdi lama siin idan amaahdaasi waynu kaadibada waa loo gogol badiyaa waynu ka dhigaynaayo dhamaba waxaan doonaya inay ka istaago ama wax jiran maaha ama hadday jirto ma dhammaystirmin ama hadday dhammaystiranto caqabaadkan baa hor yaalla ah in haddee baid mahayo ay tahay lacag intaasoo faa'iido oo kala dambaysa lagu shardiyey intaaba ka kaale waxay culimmadu leeyihiin waxaa soo baxay sharikaad islaamiya oo yidhi annagu waxaasoo dhan waa ka taklisna aan kaanan ilaawin oo ka gudbin caqabad kalaa jirto leer sumu tabyiid
ومعناه هي هي قفوا هدي وحلي وايو مالك أسمر كل أرض سو جذوه هدو حلي وايو كوميشن باكوس عوني أمر السوم يهدي بتشاتش باكوس عوني إنه ده هبين ده إلا عكسي لجوسي داي يعني ما تبغى جشوا رئيس الشنطة عمليات كذا حدا بديت أبدأ وأطلع حدا وهكذا أبغى ساعات برضه الحدا هذا الحين إذا لجوسي داي وحاك وصعدة هذا بعيد ما هيو العقل يرسم التبييت أما شاش يلعقل بتشاش كذا وهبين لها لجوسي داي معاملات كذا كفرين كاسنا واري بكرة أو أما هذه لجوسي داي كقلتي أو لغة الفائدة الجوية ملاحظات كجود بعلماء كشيئين هذا بعيد ما هيو بابك waxaa jira insha Allah taala tilmaami doona mashaakil kale oo yaani bulshada haysto waxa la sababayaan oo ah qofkan mujaazafo gali qaabka waxan qofku u faa'iideeyo waxa weeyaan uu khasaaraya sida ay ka doonayaan yaani lacaguhu korkac iyo hoos u dhaca hadee ba idma hayo lacagaha kala duwan yum bay la socotaay hadee ba idma hayo ma aha qofku wuxuu og yahay inuu ku galiyo wuxuu oranay hadii halka gaadho waa ibsa hadii halka gaadho ma ibsan waxa kada waxaa dhici karta intuu ku galo waliba dad lacag badan lagu galo in khasaaro weyn ka dhasho lacagihii bulshadu isticmaali lahaayeen si caadi loo isticmaali lahaayeen warshadaha iyo beeraha iyo wax soo saarka iyo la gelin lahaaba waxay ku libdayaan aalaadka yaryar ee muqaamarada ah khamaarka ay lacag ka soo noqon doontii kala baan loogay waa aafadka culimadu ay sheegayaan waana akhriyi doonaa naska majmac yani fiqh ulama qaarba waxay isku dayeen oo yiraahdeen waxaanu sameeynaa fadl islaami waxaanu sameeynaa rasuul tabiid ama kii qodobka u dambeeyaha habeen dhaxa inaan wax la charge gareeyay inuu sii daayo ko waxaanu sameeynaa hadaba idma hayo in badawkarkii aanu nagu shardiyin lacagtan uu bixinaya amaahda wax commission ugu shardiyi maayo waxay kala oo tilmaameen oo qodob aynan faahfaahin ah in lacagihii guddoonkoodii u dhacay hadee bayd mahayo si xukmi ah oo hadee bayd mahayo lacagtan la sarifanayo qofkani wuxuu sariftay heli maayo oo hadee bayd mahayo lacagta uu sariftay account-kaas uu ka arkaya shaashada ka muuqda ee badawrka ku dhex taala iyo dilaalka laakiin inta lacagta u soo dhacdo kalama bixi karo markiiba ee account-kiisa oo marka lacagahaas مثلا wuxuu haystay sanu tilmaanay 10,000 buu dhigtay 1,000 buu yiri ha lagu shaqeeyo imika oo 1,000 waxay u dareen hadaba idma 100,000 buu gaarsiiyay 9,000 buu gadhigay 9,000 yani raahdo waxa 100,000 buu gadhigay 100,000 oo dollar ayuu hadaba idma hayo suuq ku gal wuxuu ku badashay مثلا yuradii baasarifkii dhacay wuxuu yeeshay مثلا 75,000 oo euro uu yeeshay yurada haduu dhaahdo aan qaato akoonka u soo shubaan kala wax lama bixin karo marna kala bixin karin maayo yuradii buu celiyay door buu ku celiyay مثلا oo hadaba idma hayo faa'iido ka helay مثلا كن ضرب معاش بقول يكون بين نقط بقول يكون كي أكون عالي لو شو ما نحن نشرب كاركية وحس حقه ذا يعني كن فائدة أو كلية لما ما الموت كذي إلا وصل شو بكون عادي إذا تنا بيع مشتري مهلي برضه ما أركي ما بدون كلام لكن واحد يلا الفائدة إلا فيه سي أدوك كان صغير أي سوء عليه ولا سوء عليه لكن تن كبايع المشترين اللي كون يسموه وحاجة سعودية سعادة عشان كون أو كبايع المشترين وهو سيستي يورو ما بدون فعليا هذا مو إيبي وحوسية ضارب أما ينبو كبدش هالكاس نوفر لنا وحنا هذه أنا كهذا كأقولنا أون نراهنو قبض حكمي هذا عيال العكس أكون كالوصة شو كذا مغطى مسي يبين كرايو على الله ما جلي كرايو إلا وهذا بين ما هي بدون فعل بدون فعل كهذا يعني قارن مجمع الإسلام إلى هايين هذه قفة أكون سمعك لوجو قيده لوجو الشباب
قبض حكمي ولا يسوق قال لكن ما استعمالي كريو إلا وسيب فعلي ولا بحي كريو وصامنا الأولى ما لها سوستار واي marka lacagtan ay subid bedel waxa laga yaabaa hal maalin kaliya inay 100 jeer oo kala duwan transaction galaan ama 10 ama 20 jeer yuuda iibso bedel yan ku iibi bedel oo Ingiriisiya ku iibi Riyaal Sacuudiya ku iibi tii hore muuhil tii labaad muuhil tii saddexaad muuhil tii afraad muuhil waxaanu haynin iibinaya 10 ama 100 jeer qaar ba waxay yiraahdeen annagu hadaba idma hayo maba amahanina waxba wala dadku ka shaqeysaa in badan baanu wada hadalay oo niqaashaad yeelan waxay igu yiraahdeen lacagteedu maan ku shaqeynay soo toonku maaliyan toonku ku shaqeysanayaan welidii waxa dhimar walaw aan ogahay ama dadka qaba uu yahay lacag yar oo qof dhigtay oo 10,000 iyo wax la mid yihiin inaad waxba ka tirado suuq caalami ah hadda taadan ku daayo 10,000 kun baad dhigatay waa sarifatay waxaad ka dhigtay hadda been mahayo doorkii wax u bedeshay lacag kale yuuda badhe yuuradii waa inaad markaa sugto intaad si ficliya u heli karto macnihi laba maalmood baa laga yaabaa ugu yaraan inay qaadato account-kaaga saxda in lacagta kala bixisay kugu soo dhacdo haddii asaad rabto ilaada tan leh ilaa marka ay kuu timaado oo aad la bixi karto iyadoo lacag ah ma iibin kartid ma sugaysaa laba maalmood waxalka waxa laga shaqeystaa ilbirsiiso sida ma la isla sugaamise waa la wadaa marka xitaa hadii aad taada ku shaqeysanayso la iska badaayo leverage iyo badanba wax siiyay hadii waxa laga yimaado taada isticmaalayso waa in lacagtii account-kaaga kugu soo dhacay caadiga ah ee bangiyada caadiga kala baxda ama kala bixi karto يعني إن التواصل كلا بعض إينا ناس ولا قلت إن الكلام بعض إيده عقب مركز البلاد يفتح معاملة لبعض وأطبش مركز قبض حكم جانا ويدرسون وحيد هذين لعكتي وحنا الصمين إن قبض حكمية ولعكتي مركز آن نصرفنا تي أجنبي هذا آن نهلي أو ضوضوا لا فيه فائدة ذيبة أكون شيء يجب مقارنة وحنا لنا هاي قبضها سوى حلها قيد مبدئي لهذا والعكس والله قري أكون كذا أو بلو لكن قيد في حقيقة أما العكس وشبدي حقيقة هذا جيسين لها يطفوا إنه لبدي كرب لما يلي إلا أن لبدي كرتنا وهم معاملة أو صبي كرتا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حديث فرب بدن نهى عن بيع ما لم يقبض أفكوا واحد بدون المجلس منكم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من صحيحها النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلى الحالي نبي قوادي إن تجار كوكرته ماشي هذا كوكرتين إن كسي إيبيان إلا يقول يهود القاطع أحاديث لا تبيع ما ليس عندي نهى عن بيع ما لم يقبض وعن رق ما لم يضمن أحاديث سوي فرمانة المامسة qofku inaanu ku tasarrufi karin shayga oo iibin iyo wax lamida iyo heshiiska inaan ku gali ilaa uu gudoomo gudoomkii marka xilliga caadiga xaqiiqi buu ah lacagtu sida la gudoomi hadda wanaga lahayn culimada qaar waxay fatwoodeen akoonkeena lagu shubo oo haddii alla bixi karto aad markaa ku mucaamili karto laakiin qoladatan foregasku lacagta weligood iyadoo cadaan in la saari maayo idan lacaqdigeedii si xukmiya u dhameystirmay ma aha lacag qabdi xaqiiqiya oo si physical loo gudoomayna ma aha sidaa darteed baa lagu geli karin mucaamalaad kale aan ku noqdo haddaba idma hayo waxyaabihi ay yidhaahdeen waa iska day qodobka aan tilmaamay oo maxay ah inaan lacagta guddoonkeedii dhamaystirmin ansixin in qabdiga xukmiga aan dhamaystirminna waxaan ku sheegnay qaarkii majmuuca islaamiga ka soo naqlinay oo aha xitaa hadii laba maalmood kadib la sugo labada maalmood kadib waa la bixi kartaa lacagta marka kadib aad mucaamalo geli kartaa laakiin haddaad weligaaba heli karin lacagtaad maad gelin mana sii iibin kartid mucaamil cusubna kuma geli kartid qodobna waxaa weeye suma tabyiid baa laga daayay suma tabyiid baa lagaa daayay laakiin waxaa ku garab socda oo aadan marka ka bixi karin lacagtii lagu amaahiyey waxaa shardi ah oo ka doonaya ninka brokerka ahi inaad isaga horta
lama caamisho isaga aad ka adeegato dhexdiis marka waxa way baaciya shardi waliba shardigaas uu yahay mid faa'iido ku helay aan dhaahdo waa ama iyo shardi oo macnaheedu yahay in brokerkii ku intifaacayo wuxuu ku amaahiyey qodobka labaad haddii brokerku iska badaayo oo kuu qariyo ama kaaga dooni maayo commission caadi ama interest riba ah bangiga si amaahi baad isaga ka dhaafay dabada la siistay ilaa bangiga ribowiga ah idan ribadaasi horta sida meeshaba uga bixi mayso marka rasuuma tabyiid oo ah commissionka lagu qaato habeen dhaxa keliya baa suuragal ah in laga badbaado laakiin culimadu waxay leeyihiin ashyaadii kale ee la sheegay dhammaantood lagama badbaadi karo waxaan doonayaa inaan haddee bayd mahayo majmac alfiqh alislaami qodobada ay ku xaraantibay fadliska nafsiga kaga hadleen in insha allahu tacaala isagana aynu dul marno guud ahaan culimada majmac alfiqh alislaami waxay ka hadleen forex dabcan kan hore caadiga ah ee aynu tilmaanay bay ka hadleen ashyaada aynu sheegaynana way kaga hadleen ee faraha badnay go-aankooda haddee baid mahayo waxay markooda kaga hadleen mutaajira oo la yidhaahdo yani mutaajir bilhamish oo emergingkan laga baamshanayo qeexidiisa ribada amaahda waxaasoo dhan bay kaga hadleen kadib waxay tilmaameen majliska majmac islaami inaan la ogolayn mucaamalada foregaska waxayna ku qodobeeyeen qodobada awalan ما اشتملت عليه من الربا الصريح والربا الصريح بي يا معاملتني كوبسة بينه تاسو كدلتي على مبلغ القرض المسمى برسوم التبييت و كوميشن فيها بينها وانا شيء ربا او حرام وحيد للشدين الهي يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ايه تمامسه in ribadu xaaraan tahay oo ilahi subxana wataala naga nahiyey ciddii ka hadhowda ilahi ula dagaalamay haaniya waxay yidhaahdeen mucaamaladan uu brokerku ku shardiyayo camiilka inuu ka dhex ganacsado camiilka iyo customarku ee badiga dhexdiisa waxay keensanaysaa yu-addi ila aljamci bayna sanafin wa mucaawada in la jamciyey ama laysu keenay ama iyo wax isweydaarsi oo ah in markaa brokerku ka doonayo haddee bayd mahayo ninkii customarka ah inuu isaga la macaamilo oo wakiil u noqdo commission uu ku qaato arrinkaasna sharcaha waa manhi bay yidhaahdeen waxay daliishaneen nabi sal sl qowlkiisa laa yaxilu salafun wa bayc abu daawud tirmidi wariyeen tirmidi waa xadiis xasana oo saxiixa waxay kaloo tilmaameen culimada isku waafaqday qardi kastoo soo jida ama maalka soo jida riba inay xaaraan tahay صدق وحي لهذين إن المتاجر التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالبا ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعا كان أعصي لك السنة يا معاملة الفوركسكا أنت بدو حي كد عدا سوق عالمية كواسو الشيء سبب حاران كده شقيستا محاكم ده الشيء سداس إني كشغلستان سندات أما بوندسك وحلي لهذا waxaa ka mid a inay shirkadaha sheerkooda ka baayacda shirkadahan aan u kala soocin haddee bayd mahayo xalaal iyo xaaraan waxay yihiin adu waxay tahay in intaasoo shay oo haddee bayd mahayo shirkadaha suuqa caalamiga ku xidhan ee brokerka iyo isku suuqa yihiin waxyaabaha xaaladda ka baayac musharaak afar waxay dhahdeen waxaa ka mid ah haddee bayd mahayo وسيطك وحو إيبنيا وحن ملكين أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك وبيع ما لا يملك ممنوع شرعا وحو بدأت إيبنيا وحن ملكين
waxaana milkiin la iibiyaana ma bannaana oo waa laba shay wixii lama milkiyinna waa shay lama guddoominna waa shay wanagii ku bilowdan nidhi lacagtani markii hore waxaa shaki ku jiraa lacag saxa ma tahay waxaanay u badantay inay tahay lacag aan jirin haddii halkaas taasi caddaato waxoo dhan baa burburaya oo sheeko dambe iyo war dambe loo baahan maayo waayo qofku waxaanu haynin haba baacsan kara sarifkuna uu ka seedi uu ka duwan yahay waxay kale oo sheegeen رابعا لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة وخصوصا العميل المستثمر معاملة waxay koobsatay dhibaatooyin dhaqaale oo dhinacyada heshiiska galaya soo gaaraysa gaar ahaan qofka customer-ka ah iyo sidaas oo kale dhibaatooyin على اقتصاد المجتمع بصفة عامة dhaqaalihii bulshada si guud baa arrinkani u dhibaabaynaya لأنها تقوم على التوسع في الديون waxaa foreysku ku xidhan yahay ama ku taagan yahay in deynta lagu tawassuco qofku deyn fara badan iska qaato waa loo midaabdayin وعلى المجازفة هي مغامرة مجازفة waxaa weeye waxaadan u midaabdayin inaad samayso waxaadan qiimeyn maxaa ka iman kara waan doortay suuqii baa dhacay macluumaadkan la helaya ee dadku xarfaan baan nahay iyo waxaan baranay suuqa kiciisa iyo hoos dhiciisa iyo waxaan ku xidhanahay badowkada waaweyn oo caalamka yaqaano oo kuu sheegaya sida wax u socdaan iyo waxaasoo dhan waa mala awaalow maxaa markaa dhacaya mujaazafo inay ku idhaahdaan gal oo aad gasho ay kula go'do oo boqolaal kun oo muslimiin iyo boqolaal kun oo masaakiin oo caalamka waxaasoo khasaaray ku go'o ogow oo lacag tirada adiga 10 kun ahaa haddii khasaaruhu uu gaadho 10 kun way dafaya qaadanaya markaba hadduu arkadu ka badan yahay mucaamalada kan sameeyay ee lafteedu waa faragelin iyo faragelin xiga maamulanaya marka 10 kun oo dollar 10 kun oo qof ay ka khasaareen isu geeyo waa imisa waa 100 milyan soo soma waa 8 zero waa 100 milyan oo dollar 100 milyan oo dollar in mujtamaca masaakiinta maqaali kara ma yahay idan qofkii iyo mujtamaci waxay ku tahay baalki hazaadkan dhacaya iyo hadee ba ilmahay isbeddelka sariica ah ee dhacayaana ee lacagaha fara badan ee sidaan loo yani loo midaandayn oo la qorshaynin loo galayana waxay khasaare gaarsiin karaan macaamilka suuqa oo dhan ma aha tasarrufka kaliya ilan macaamalaadka iyo badeecooyinka waxay ku xidhan yihiin hadee ba ilmahayo waxay ku xidhan yihiin lacaga marka waxay yidhaahdeen forex wuxuu ku taagan yahay diyuun fara badan oo la qaatay iyo midal dayn la'aan iyo khimaar iyo muqaamara la galo sidoo kale waxaa wama tashtamilu calayhi gaaliban min khidaaci wa tadliil wa shaa'icaat waxay kale in badan koobsatay bay yidhaahdeen marin habaabin iyo haddee beedmahayo dagid la isdagayo iyo shaayaxaad war la faafiyo aan waxba ka jirin kanaa kacaya kanaa dhacaya waxaas iskantay bay yidhahdeen waxay kala codsantay ixtikaarin waa najashin ixtikaar qofku oo lacagihii dadkao dhan intuu gacanta ku dhigo isagu keligii doonaya inuu haddee beedmahayo oo ku shaqeeyo oo aanu ku ogolaan adigu inaad faraha la gasho taqallubaad qawiya wa sarca fi lascaar lilascaar iyo isgagadi badan oo xoog badan oo degdeg badan oo ku yimaada sicirka haddee ba ilmahayo ashyaada waxay kale oo yidhaahdeen iyo wasaraa asariic walxusuul cala mudakharaat alaakhariin biduqi gayr mashruuca iyo in qofku bihadafi saraa asariic yani iyadoo ujeedku yahay in qofku si degdega u hodmo iyo walxusuul calaa mudakharaat alaakhariin biduqi gayr mashruuca iyo qofku inuu dadka hantidoodii wadooyin aan banaanayn ku helo mima yajcaluha min qabiil akli ilmaali bilbaatil taasoo ka dhigaysa dadka xooladiisi baatil in loo cunay idaafatan ila taxawul amwaal fi lmujtamac min alashri aliqtisaadiya alxaqiiqa almuthmira ila hadihi almujaazafaat غير المثمرة اقتصادية waxaa loo geenayaa in dadka lacagahoodii loo xawilay activities dhaqaale iyo ganacsi oo aan dhabahayn oo aan midho lahayn in laga leexiyey in la geliyo lacagta mucaamalaadkii dhabta ahaa ee ummadda wax u tarayay warshado iyo beero iyo xoolaha nool iyo badaha iyo kalluumaysi wixii la halmaala
إلى هذه المجازفات غير المثمر الاقتصادي وحنا اللي قليل يعني مغامرة شرس كحر لماذا آن ملكاهين وقد تهدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وتلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة تاسو marka u keensa dhaqaalaha ummadda yani hoos u dhac weyn ku yimaado oo dhibaatooyin badan oo fog gaarsiin mujtamac على كل حال برنامج كفورغسكو كل يدب وكان إليه وأنا مرينا إلا فهمي marka la soo duubo مجمع الفقه الإسلامي هي علماء المعتبرين تاهي العالم الإسلامي وحرنتنمي مسائل كفقهية وحادعي كرتا يقفكم قفل وحسوا بنايه الواي لكن عبرضوا معها عدون ما فتوتي معها عبرض يعني حراشة هي حرامتا قفكم إنه راديو مركا وقنعسان يا مقالة كسبانيو عدون ما الله يا بميسي واحد تلماميسا ضعف إيمانك واحد تلماميسا ورع الآن أن قفكم حلال مير لهين waxay tilmaamaysaa damac iyo guri waxay tilmaamaysaa deerasho ku dhiiranaya maxaarimta الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يعني حلاش لو عد حرام لو عد وحيابها مشتبهات كاه ده قلا يقف حلال نمو حلال نمو وقرن وايو حديثك وحول ليه فمن اتبع الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قف اسكيل عليه الشبهات بالمدو كقلو دينتيسي عرضيسي لبدنا وابدادي ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام قف في الشبهات كدع عن الحرام وكدع مركا هديبا أين وقادم ويدو حرام وكقطع ويدو علماء فربضان عالم الإسلامي دوا عمددوا مجمع الفقه الإسلامي كمديا هي الصون لأن يقول كذا داد كقطع ويدو oo bad tiraahdo wax yar baan haystay wixii bahalkeenaya miyaad ka badbaadaysaa walaalkayo shubahaadka nabi sallallahu alayhi wasallam yiri faman taqa shubahat faqad istawra lidinihi wa irdi marka adiga naftayda iyo tiinaba nasaxaynaya waxaan soo jeedinayaa walaalaha dhalinyarada ah ee ku hadaba ku afoobay ama ka daba dhacay فورس إن فرها كقادة إلى سبحانه وتعالى إنك أي وعب صدان ذلك كشقيان أنا يوقع عن هذه وأرد كم فرها بدن يو ذلك الضمية فرها بدن يكملش كل جدوني إلى إلا غبقه ومضى الإسلام كان تدير لنا وحم مغامرة وأضرار فرها بدن أي كحيرتها أن الجليم إلى إلا غبقه شبهات كايو محرمات كافرها بضيعة المامي والاسكيلاني وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. الله كرم اليوم دكتور جامعة إسماعيل سيدة وناسن وموشح إلا فهمان في الآية إن شاء الله تعالى. السؤال هو المنظور هاي فرز سيدة وقتا مالك استمع تعود معنا سؤالها دورنا وهي هاي فرز هو بنت الخلق عندي بنت الخلق. المهم شيخنا متخصص دكتوراه إسلامي فاينانس PhD waxaan xasuustaa markaan wada jirnay madiina 2008 meelaha jaamacadda anagoo markaas soo marnay iyo sheekha oo master sii dhamaynayo ayuu noo dhigi jiray mucaamalaadka iyo islamic financeka iyo wixii ku soo qaaday marka waan dareemi karaa culeyska qofkii hadda maanta ugu horeysay mucaamalaadka in la qeexo wax jaamacad afar sano lagu dhigto ayuu sheekha uu isku dayay in saacadii barka u soo koobo su-aal badanna waa loo yaadeen waqtiga laakiin aad buu waxaweye u tegey idinkana waxay iga muuqda xoogaa
الله كعوى المريض فورس وعمله في واقع وقتي إلى يوم وحكم بريسان هو على علمنا يجمع الإسلام فقهي شيخ وقوسه قريب بأي ذلك الله ضعفه الله ضعفه يعطي السؤال الصغير إن شاء الله تعالى هلم البيت أي نقدم الدورة بإذن الله تعالى ناس يقصدون أن مقدم وحجرامة فلك فوشة أمات كما على الشركة أما مدمر وعمالها هنا وأمان بل كان كما عليه أنا بشم أسمى زوجة كذي لا سبحان الله الله يسلم الجواز أنت الله سبحانه وتعالى عافية سر إيمان أمان على النبتين أمان الله بكتير يمكن ولا الرباط معك مستوى أو بلوت سلوكي إن بدن تابع وحصوله أو الله من يسوع الله سويت أن الكار ما يسوع ما أنت بدن يجيب يبيوي رد يدور كل يوم الله من المسلم وصيده في لها عدو يدوس فيهم ويستقر معها فالجيل أو النور إما أسأل الله رسوله أيضا يسر في السماء فالله سبحانه وتعالى كان يجيب سويد عن وقام السلام ونجاجنا وحصل الله كبيرا وحاقوا خلق الرسل والمن والله هو يجهني الرسل والله كبيراتين أيضا عدوى رحمة الله أيضا أنت سؤال نجل أسؤال الدنيا الله سبحانه وتعالى كان يجيب فما الله سبحانه وتعالى هو رأى مغرب أكبر المسؤولين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.